soo gaadhnay shan baan u aqriyeynay marka qaarkood 6 inta badan 5 baan u aqriyeynaa insha Allah xadiidka 22 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار رواه البخاري حديث كان وحاورين يا صوص صاربا نتشذا الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أبو هريرة وحوليه نبي يلي صلى الله عليه وآله وسلم ما أسفل من الكعبين حديث كان وحكا يا قابك أي رجل درك أحدان وأنا قضب مهمة oo inay waalidiintuna ku baraarugaan ay muhiim tahay macallimiinta wax baraysa ilmaha ee murabbiyiinta ah ee doonaya inay soo saaraan jiil nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam ku daydana inay baraan waa laga maarmaanaa mawduucan xooga saaraan shareecadana waxba kama tegin qaabka musqusha loo galo qaabka dharka loo xidho gacanta ay mudan tahay cuntada in lagu cuno shareecadu waxba kama tegin qaabka hadaba dhar xidhashada u fiirsada ragga lala hadlaya dumarka may nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu ma asfala wixii ka hoos mara min al-ka'bayni labada anqaw waa lugaha labada lafood ee anqaw loo yaqaano wixii ka hoos mara oo min al-izari dhar xidhashada dharkan la xidhanayo ama khamiis ha noqdo ama zarwaal ha noqdo ama macawis ha noqoto waxa ay dhar raggu ay xidhaan hadayba labada anqaw ay ka hoos maraan nabigeenu sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay inta ay maradu qarisay ee anqawa ka hooseeya fi naari abaalkeeda naar baa laga dhigaa maalinta qiyaamo yani naar baa la gelinayaa intana qofka loo gelinayaa naar nacuudu billahi tabaaraka wa tacaala maa asfala min alkacbayni min alizaari fi nnaar riwaaya kale fa fi nnaar wixii ka hoos mara labada anqaw ee dhar xidhasho ah oo raggu dharka ay qabaan ka mid ah oo ama khamiiska oo labada anqaw ka hoos mara ama zarwaalka oo labada anqaw ka hoos mara ama macawista oo labada anqaw ka hoos marta wixii la xidhaba intaasi marada anqawa ka hooseeya nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay naarta ayaa loo gelinayaa maalinta qiyaam idan xadiidka waa xadiid cadiim cajiib khatar ah abu bakr baa u yimid nabigu sallallahu alayhi wasallam ya rasuul allah aniga maradaydu hoos bay iiga dhacdaa ilaa an atacaahad inaan ku dadaalo ma ahane abu bakr waxaa lagu yidhi adigu kuma jirtid kuwa kibirka arrinka u samaynaya abu bakr marka taskiya la siiyay wuuna dhuubnaa wuxuuna yidhi ilaa an atacaahad inaan dadaalo ma ahane adigu ma dadaashaa marka hore mise marka hore eed marada soo gaabsanaysaba eed harqaanka geysanaysaba halkaasaad geysataa ragga dhar xidhashadoodu waa waxa anqawa ka koreeya ilmaheenna waa inaan baro haddii kale ilmahaaga sooma jecelid waalidkaa la hadlayaa ilmahaaga sooma jecelid annaga waan ku jeesjeesnaaba kuwii sarwaal gaabyada ahaabale kuwii sarwaalada gaabnaa ee kuwii taftaxaydnaa ee kuwii maxaa la yidhahdaa khamiisyada gaabnaa ee waxaa arkaysaa qof weyn oo markaad ku soo baxdo adoo khamiis gaaba saa kuu eegaya kula yaaban adiga dhanba nabigeena rasuulullah ilaahi sallallahu alayhi wasallam ilmahaaga sooma jecelid qaangaarka ah bar dharka sida loo xidho innaga mushkiladeenu ilmaha cuntada uma marnaa cuna aan baan dhahnaa sida lagaaga doonayo inaad cuntada u barto ooguna dadaasho yaa lagaa doonayaa cadaabkana inaad u barto wixii lagu galo oo ay ka mid tahay qaabka dharka loo xidho ma dareentay amsaladaas maa asfala min alkacbayni min alizaari fi nnaar labada anqaw wixii ka hooseeya oo dhar xidhasho ah saaxiibkii naar baa loo gelinayaa qaar baa waxay isku dayeen inay dhahaan maya ee xaragaa loola jeedaa xaragadu waa qalbiga wax ku jira xadiidka abu daawuudkana wuxuu leeyahay
isbaalku asagaaba min almakhyala asagaaba xaraga kibir ah ana qalbigaaga man ku jiraa may midda kale midka sarwaalka gaabsaday ama khamiiska gaabsaday hadduu kibir u gaabsada ka war ayada lafteeda wuxuu u gaabsadayba haddayba kibir tahay iyo istustus maxaad ka tidhi kibirku ama gaabso ama dheerayso kibirku waa shay gooni ka ah waxan laakiin nabi maxamed baa kaa reebay sala allahu calayhi waaalihi wasalam ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار حديث كاللبي اللباتنات عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه رواه البخاري حديث كان الإمام البخاري باصوص صاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أبو هريرة وحوليه النبي وحويري صلى الله عليه وسلم الملائكة تصلي على أحدكم ملائكة ويؤد عيسى على أحدكم مد إذن كاملة ما دام في مصلاه الذي صلى فيه انت فرقيا ماشي وكنت كذا انت وقفك فرقيا ماشي وكنت كذا ملائك بأدعين ملائكتنا الدعاء ذو مقبول عند الله قارمة ما لم يحدث هدينا ويسدو كتشبين أو ما لم يحدث رواية كلا هدوس الشيكين أو شيكة دنيوي هدوس الجرين شيكة الدنيا ذا بابور باسوق يالي إيو ألابا لسوتش بيه مما غشي إيو هدينا أرمى الدنيوي أوسن جرين وما لم يحدث أما أين ويسدو كتشبين وما لم يحدث ملائكة محيده تقول وحيلا اللهم اغفر له الله يودن بداف اللهم ارحمه الله النحريس الله أكبر الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه وحلقودي رجالين لها لقودي رجالين يا قفك مسلم كأهو ماشت كنت كتب الحوغة إن تكون نجاته أو تصبيح سطو أو صدني صدح جر سبحان الله صدني صدح جر والحمد لله صدني صدح جر الله أكبر مركب وقال لا إله إلا الله وحده اللهم أنت السلام ومنك السلام بل دعوينك أذكارتي قل هو الله آية الكرسي بل ترتيب حديث عظيم وهوين وهدان دون إنه الله نون نحرسته وهدان دون إنه ملائكته إنه دعيسه حديث كلماتني يصدحات عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى رواه البخاري حديث البخاري بالصوص سارية من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أبو هريرة وحوليه نبي وحولي صلى الله عليه وسلم كل أمتي لما أمد النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولبا أمته إيش الإجابة أمد النبي قال الله قيبية صلى الله عليه وسلم أمد حالي أمة الدعوة قال يا مسلم بسوق لي منا وحالي أمة الإجابة وإنت الراعي الرميسي إلهي أن نقدر وأنكو جرنا بإذن الله تبارك وتعالى إلهي أن نقصه اللهم آمين إذا النبي صلى الله عليه وسلم حليه كل أمتي لما أمة بيضاء أوردن يدخلون الجنة جنة يقلي دونان إلا من أبى قفك الرحمة هاني مربو أوه ما دون أيوه قفك الرحمة هاني قفك الرحمة مربو ما هاني انت كلا الجنة يقليان أرنك السحابة ويليابين قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يأبى
rasuulka ilaahay yaaba diidi kara jannada yaaba diidi kara jannada rabbul caalamiin yaa diidi kara ee adiga sababkaaga lagu gelayo qaala fiiri meesha uga soo baxay nabi sallallahu alayhi wasallam man ataacanii nabiga dhahay alayhi wasallam qofka aniga i ateeca qofka aniga wadadayda qaada qofka aniga amarkayga qaata qofka waxaan ka reebay ka hara dakhala aljanna hatman jannadu galaya saasuu nabigu leeyahay alayhi wasallam wama yantiqu an alhawa alayhi as-salatu wassalam waman asaani qofka igu caasiya qofka amarkayga qaadan waaya qofka qowlkayga iyo qowlkiisa kiisa hormariya qofka camalkii aan ku amray wax kala ku daro oo bid'a ilaahay ugu dhawaada tabaaraka wa tacaala qofkaasi macnaheedu faqad abaa waa diiday waxay ka dhigan tahay janno ma rabo waxay ka dhigan tahay jannadii waan diiday khatar sama man ataacanii dakhala aljanna waman casaanii faqad aba waa inaanu barra marka xadiidkan iyo axaadiis haddaan soo maraynayba waxay macnahoodu ay yihiin in nabi maxamed la raaco sal ly slam in nabi maxamed diintan lagaga daydo haddaan tukanayno waa in asaga kaga dayanno sax haddaan shay cibaado ah samaynayno cibaadada waa in asaga kaga dayannaa sax haddaanu xajiyayno cibaadaduu soo gelayay waa inaan xajka asaga kaga dayannaa sax haddaan reero dhaqanayno carruur tarbiyaysanayno dhaqaalo aan samaysanayno nolosheenna oo dhan ilaahay rasuul baa leh qaala tabaaraka jalla wacala qul ina salaatii wa nusukii wa maxyaaya wa mamaatii liman lilaahi rabbi alcaalamiin laa shariika lah idan noloshaada oo dhan yaa leh xayaatadaada yaa leh geeridaada yaa leh qawricaaga yaa leh ina salaatii wa nusukii wa maxyaaya wa mamaatii lilah rabbi alcaalamiin idan allah iyo rasuul qur'aankiisa in badan baad ku arteen ومن يطع الرسول ومن يطع الله والرسول من أطاع الرسول فقد أطاع الله من أطاعني إلى آخره متابعة لقد دونيا اعتصام بالكتاب والسنة فإن تنازعتم في شيء هذا تكون مرنتان فردوه إلى الله والرسول الله يا رسول علي نور المدوننا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إلهي رسول كيس أجيب إذا دعاكم لما يحييكم hadday idinku yeedhaan wax idan nooleeya diintoo dhan baa marka noolala xadiidka marka aan ku baraaruna waa xadiid cadiim ah xadiidka 24 can abi hurayrata radia allahu tacaala canhu ana rasuula allahi sala allahu alay wasalam qaal ida qaala alrajulu liakhiihi ya kaafir faqad baa'a bihi axaduhumaa rawaahu albukhaariy xadiidkan bukhaari baa soo saaraya من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أبو هريرة وحوليه نبي وحويري صلى الله عليه وسلم إذا قال الرجل قفك هدوله ومن باب التغليب رجل ضمربا إذا قال الرجل قفك هدوله لأخيه المسلم لأخيه ولكن سكل مسلم كأه هدو كله يا كافر قال يهو فقد باء ونقريا به هذا الكاس أحدهما متكود بكل لابنيا لبضو متكمد بو هذا الكادب أو النقر حديث كان معنيه سو وحوت الماميا قفك هديما مر إسلام مدي سله به أو إسلام مدي سو أي سحصون نقطي wuxuu islaamnimada kaga bixi karo waa daliil kaloo cad waxa marka qofka muslimka alla diidaya qofkaad iskhilaaftaan ba inaad ku dhahdo gaal baa tahay kaafir baa tahay murtad baa tahay munaafiq baa tahay mujrim baa tahay faasiq baa tahay taas alla diidaya ahkaamta noocana qofka inaad dusha iskaga tuurto adigoon hubsanin adigoon ogeyn qofkani wuxuu ku noqday gaal ku noqday oo islaamnimada uu kaga baxay oo murtad uu ku noqday adigoon daliil cad sida qoraxda u cad oo laba qof ayna ku murmaynin
adigoon u haysanin inaad qof dhahdo waa kaafir ama waa murtad sida maanta kaararka yar la qaybiyo ee qofka wax yar iskhilaaftaanba aad ku tuurayso waana maanta bulshada muslimiinta qayba ayaa lagu imtixaamay waana firqooyinka takfiirka ee dhiigga muslimiinta banaysta calaamadaha lagu yaqaan cidda iskhilaafaanba inay waa gaal waa camiil waa faasiq inay dhahaan taa macnaheedu kama wado qofka inuusan gaaloobi karin qofka waa gaaloobi karaa way dhacda inuu gaaloobo oo ashyaa cad uu islaamka kaga baxo qofkaasi hadduuba islaamnimadiisu ay burto oo nas cad ay ku burto asna in la dhoodhoobo islaamku ma qabo la waa arrinta irjaaga loo yaqaano wey fikir kale fikrul irjaaga wey kaana waa fikru takfiiri والاعتزال iyo waxa la yiraahdaa wal khawarij afkaartooda way ahli sunna wal jamaa labadan bay u dhaxayaan man thabata islamuhu bi yaqin qofka ay sugnaatay islaamnimadiisu gaalnimo looma saari karo illa yaqin iyo burhaan cad laysa alayhi maxaa la yiraahdaa min allahi burhaan ayadoo yaani wax inna xujjal loo haynin uu ku joogi kara islaamka in loo helo ma ahane islaamka lagama saari karo intaas oo dhan waa mas'ala digniinteeda leh marka dadka caadada ka dhigtay inay muslimiinta iska gaalaysiiyaan sabab la'aan sharci ah arintaasi waciid adag baa ku soo arooray waxaad isu soo rashaxdaa oo isu soo taagtaa kelimadaasi hadday ninka uu noqon weydo inay adiga dusha ka fuulayso oo adigu aad kaafir noqonayso ku talagal khatarteeday noqon kartaa yaani inaad cadaab ku geli kartaba إذا قال الرجل لأخيه يا كافر dadka qaar baa hadii inay dadku gaaloobi karin oo haystaba oo wax gaalnimo ku dhici la ilaha illa allah qofka duu dhoo khalaas way la ilaha illa allah waa kalima weyn laakiin nawaaqid bay leedahay la socotaana إذا قال الرجل لأخيه يا كافر ninku haduu walaalkii ku dhaho gaal yahow faqad baa bihi ahaduhuma kalimada midkood bay dib ugu laabanaysaa rawaa bukhari حديث كمان تدرسينا أو بية إيشان يلا باتناب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لله أشد فرحا بتوبة أحدكم من أحدكم بضالته إذا وجدها وقابي حديثكم انت وكدر رواه مسلم حديث كان إمام مسلم باورينيا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أبو هريرة وحوليه نبي وحوليه صلى الله عليه وسلم الله حديث كان وحكى لي توبة قيمها إلى هذا توبة قيمة إلى هذا الله أعلم رسالة ولا لها سؤال أروري لبدأ حديث ثبت اسمه حجسيا دمو كاسي دنبي وين قف مسلم يا كافر كلها ودنبي وين تاي أيا حديث كان المودة ولا له إنه يقدرتين إنه كحيبه لله أله أي أشد درا فرحا من فرح إلهي ما كفر حتام بضن بتوبة أحدكم من أحدكم بضالته أحد إذن كذن كمذا مركو التوبات كانوا أحد إذن كذن كمذا مركو التوبات كانوا إلهي أصر النغضة إلهي تبارك وتعالى وكفرها وحون فرحيس وكبديهي من أحدكم بضالته nin idinka mido baadidii si helay wixii ka dhumay helay sidoo u farxo oo kale ila wajada markuu helo ka daran buu Allah u farxa bil ikhtisaar si kooban oo gaaban xadiidkan sababta uu ahaa aan idin sheego nin baa safray gaadiid buu qaatay geer neefriti wax lamida wuxuu saartay wuxuu cuni lahaa iyo wuxuu cabi lahaa safar dheer buu galay markuu meel cidla socdo ayuu daalay geed buu wax yar hoos seexday ritigina waa sii daayay ritigii baa dhumay indhuhu kala qaaday ninkii ritigii buu raadiyey bidix horay gadaal waa waayay meesha uu ka yimid hadduu dhaho dib ugu noqo oon buu u dhimanayaa iyo gaajo meeshu u socdo hadduu dhaho aadna ooni gaajo u dhimanayaa ninkani wuxuu xaqiiqsaday inuu dhimanayo tayib wuxuu is yidhi marba waad dhimanaysaaye geedka hoostiisa iskaga dhimo
ninka asagoo fikirayo oo geedka hoos jiifa ayuu ilaahay raxmadiisa ku soo degtay markaasuu indhaha isku qabtay sikino markaasuu kala qaaday haddana sarritigiisii oo dul daaqayo oo dul taagan buu arkay oo cuntadiina sida cabitaankiina weli sida markaasuu ninkii intuu farxay oo farxaddii ka badatay ayuu kelimo gaalnimo ah ku hadlay wuxuu yidhi allaahuma anta cabdii wa ana rabbuk wuxuu yidhi ilaahayow adigu addoonkaygii baa tahay anigana kii ku abuuraana faraxii baa ka batay nabigaase u cudur daaray oo yidhi akhta'a min shiddati alfarax ninkaa wuxuu hadalkaa u dabamaray oo sawaabkii u gafay oo khaladka u galay farax daraaddii looma qabanayo xale qofka markii la gaalaysiinayo waxaad ogaataan xadiidkan iyo xadiidkan oo isku xidhan yihiin cajiibe kelimo kasta oo qofku ku hadlo gaalnimo ah ama ficil kasta oo gaalnimo oo qofka ka dhaca waa shay gaalnimo ah laakiin qofka uu waxaa ka dhacay qasab ma aynu ku gaaloobi karo waxaa jira waxa la yidhaha taxqiiqu shuruud wa intifaau almawaanic culamaau lcaqiida baa si fiican u yaqaan takhasuska caqaa'idka dadkana baa si fiican u yaqaan qofkani shuruud laga doonayo inuu in laga helo iyo waxyaabo laga doonayo in laga waayo baa u diidi karaa maxaa ka mid a jahliga waxaa ka mid a maxay khata ah idan ninkan maanta ma gaaloobin khata baa carabkiisii soo maray khata ana gaalnimo gaadhsiiyey kelimadu waa gaalnimo laakiin saaxiibkan ma gaaloobin akhta'a min shiddati alfarax ayuu nabigu yidhi sala allahu alayh wasalam markaasuu nabigu xadiidkan aqriyay lallahu ashaddu faraxan bitawbati axadikum min axadikum bidaalatihi marka waa ilaahay wuxuu na jeclaysiinayaa towbada iyo inaan asaga ku noqonno asaga u laabanno tuubuu ila allah jamiican rabbi u laabta kulligii ayuha almu'minuun waad liibaanaysaan lacalakum tuflixuun man taaba taaba allah qofka toobad keena ilaahay baa ka toobad aqbala ilaa man taaba wa aamana wa camila camalan saalixan fa ulaa'ika yubadilu allahu sayi'aatihim xasanaat xataa haddaad toobad keento xumaantii baa wanaag ilaahay kugu bedeli tabaaraka jala wacala wa aniibuu ilaa rabbikum wa aslimuu lahu in badan buu wallahi inii la astakfiru allaha wa atuubu ilayhi fi lyawmi akthara min 70 mar in badan baan ilaahay u toobad keenaa 70 iyo 100 jeer 170 intaba nabigu waa sheegay sala allahu alayh wasalam ilaahay waxaan ka baray inuu toobadayada aqbalo ilaahayna waxaan ka baraynaa diinta inuuna fahamsiiyo faham dhab ah allahuma arina alxaqa xaqan warzuqna ittibaacah wa arina albaatila baatila warzuqna ijtinaabah intaanu kaga kulmayna xalaqa aantan ahayn waxaan idinkaga tegayaa subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astagfiruka wa atuubu ilayk wasalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.